ku socono I wake up waan toosaa I wake up waan toosaa oo hurdadan ka toosaa macnaha I wake up waan toosaa I turn off waxaan damiyaa my alarm waa qalab lagu xirto waqtigaas marka la gaarana wuxuu ku sameynayaa qaylo dhaan oo cod dheer ayuu ku qaylinayaa yacni in waqtigii la gaaray marka alarm dadka qaar Soomaalida alarm way iska dhahaan dadka qaar gambaleel ay dhahaan marka waa qalab suurto gelinayo in waqtigii ku xirtay marka la gaaro uu qaylo dhaan ku sameeyo digniin yacni wuxuu ku sheegayaa in waqtigii la taagan yahay marka wuxuu yiri I turn off waxaan damiyaa I turn off my alarm waxaan damiyaa alarmka I get up waan kacaa I get up waan kacaa marka I get up oo waan kacaa iyo I wake up oo waan toosaa maxay tahay farqiga u dhaxeeyo waxay tahay I wake up waa marka indhaha aad kala qaado laakiin wali aad sariirta sii jiifto oo aadan ka soo kicin get up na waxa waaye marka aad sariirta ka soo boodo oo aad shaqadaada qabsato danahaaga raacato marka I get up waan kacaa I take a shower waan qubaystaa I have a shower waan qubaystaa labadaba waa isku mid I get dressed waan labistaa I get dressed waan labistaa I get dressed waan labistaa I comb my hair I comb waxaan shanleeyaa my hair tinteyda I make waxaan sameeyaa breakfast quraac I make waxaan sameeyaa breakfast quraac I eat waxaan cunaa breakfast quraac I have breakfast waan quraacdaa I eat breakfast waxaan cunaa quraac I have breakfast waan quraacdaa waa isku mid labadaba I brush waxaan cadeeyaa my teeth ilkahayga I brush my teeth ilkaha ayaan cadeystaa I go to work waxaan aadaa shaqada I go waxaan aadaa to work shaqada I start waxaan bilaabaa work shaqada at 9 sagaalka I start work at 9 waxaan shaqada bilaabaa sagaalka I answer emails waxaan ka jawaabaa emailada I answer waxaan ka jawaabaa emailada I eat lunch waan qadeeyaa I have lunch waan qadeeyaa labadaba waa isku mid